maanta heesoo waxay noqdeen shay intishaara waxay noqdeen shay lagu faantamo waxay noqdeen waxyaaba dadka lagu soo dhoweeyo ilaa heer lagu magacaabay inay yihiin hanuunin ayaa lagu tilmaamay qur'aankii wax hanuunin lahaa dibudhac ayaa loo arkay maanta wallaahi fitna ka weyn ma jirto heesihii shayaadiinnimada gabdhihii zunaadda ahaa kuwii xaqa alla diiday ay ku socdeenna waxaa loo arkay waxyaaba hanuunin ah waxaad maqlaysaa hoballadii hanuuninta waxay hanuuninayaan maxay yihiin dadkay waxay ku hanuuninayaan naarta waxaa imaan doona buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dad noocaasoo kale ah oo xumaanta dadka ugu waca oo khayrka ilaahay diida ninka la yidhaahda xudayfa ibnu yamaan wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allaahi dadku waxay ahaayeen kuwa rasuulka can ilkhayri khayrka weydiista wa kuntu as'aluhu can ishari anigu shartaa weydiin jiray buu yidhi xudayfa sababtu waxay tahay makhaafata an yudrikanii anoo ka cabsanaya haleelkeeda markaasaan maalin idhi yaa rasuula allah innaa kunnaa fii jaahiliya annagu jaahli ayaan ku sugnayn iyo jaahilnimo iyo shar fajaa'ana allaahu bihada alkhayri ilaahay baa khayrkaan noo keenay axaadiistan iyo diinkan iyo qur'aankan ayaa ilaah noo keenay fahal bacda hada alkhayri min shar khayrkaan ka gadaal shar ma yahay rasuulka ilaahayow qaala nacam haa ayuu dhahay nebiga khayrkaan shar baa ka dambayn doonta fitan ayaa ka dambayn doonta qultu wahal bacda dalika sharu min khayr waayahee shartaa imaan doonta gadaasheeda khayr ma yahay qaala nacam haa ayuu dhahay khayr ayaa ah wa fiihi dakhanun laakiin dakhan ayaa dhexdiisa ahaaday waa qiiq ama waa qaac waxaan idhi buu yidhi wamaa dakhanuhu dakhankiisu maxaa waaye rasuulku wuxuu yidhi qowmun yahduuna bikayri hadyin waa qoom ku hanuunaya waxaan hanuun ahayn tacrifu minhum wa tunkiru ma iyagu waad aqoonsanaysa mararka gobol ka mid ah marna waad inkiraysaa waxaan idhi buu yidhi xudayfa ibnu yamaani fahal bacda dalika alkhayru min shar khayrkaas ka gadaal shar kale ma yahay rasuulka ilaahayow aad ayuu uga cabsanayaa xudayfa wuxuu ka cabsanaa sharta imaanaysa wuxuu ka cabsanaa suu'ulkhaatima inuu ku dhinto wuxuu ka cabsanaa in ilaahay agtiisa uu wanaag ka waayo wuxuu ka cabsanaa in ilaahay agtiisuu ku fadeexoobo wuxuu ka cabsanaa in jannada uu heli waayo wuxuu ka cabsanaa inuu nebiga la kulmi waayo wuxuu ka cabsanaa darka aakhira in laga cabsiin waayo markaasuu mar walba sharta weydiinaa nebiga fahal bacda dalika alkhayri min shar khayrkaa ka gadaal shar ma yahay qaala nacam haa buu dhahay nebiga ducaatun calaa abwaabi jahannama ducaad ayaa imaanaysoo albaabka jahannama wada dhooban man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha qof kasta oo ajiiba way ku tuuraan albaabkii jahannama albaabkeeday ku ridayaan maanta hanuunintii heesahay noqdeen hanuunintii qamrada oo lacabay noqdeen hanuunintii qabiilku wax ay degsaday noqdeen war ducaadda noocaasa iska ilaaliya albaabka jahannama ayay taagan yihiin maca daalika qofkii ajiiba qofkii raaca jahannama albaabaheeda ayay ku ridayaan xudayfa wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allah sifhum lanaa noo tilmaamba si aan u ogaano dadka oo aan isaga ilaalino rasuulku wuxuu dhahay hum min jildatina maqaarkeena oo kale ayay leeyihiin wayatakallamuuna bialsinatina carabkeena iyo luqooyinkeenay ku hadlayaan xudayfa wuxuu yidhi dadkaa layskama ilaalin karee famaa ta'murunii in adrakanii daalik maxaad i fari lahayd rasuulka ilaahayow haddii alla igaarsiiyo oo aan soo haleelo xaaladda noocaas ah waa fitan cajiib badan dad ducaad ah oo kuu wacaaya oo albaabka jahannamo taagan oo haddaad ajiibtana kugu ridaaya adigoo kale ah maqaarkaagoo kale leh luqadaadoo kale ku hadlaaya waa dad aan layska ilaalin karine rasuulkii alla famaa ta'murunii maxaad i amraysaa in adrakanii daalik waxaad laasimaysaa ood ku dhex jiraysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda meelaha fisqiga fitanta ha aadin riwaayadaha iyo kunsheertooyinka ha aadin war gabdhaha muqaniyaadka meelaha ay ku heesaan ee zunaada ha tegin mar walba jamaacada muslimiinta ku dhex jir waa in rabbi laga baryaa subxaana wa tacaala inuu diintiisa iyo khayrkiisa iyo wanaagiisa uu kugu sugo